قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز bismillaahi raxmaani raxiim kuna wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada daawadayaal warka galcad miidiya qodobadaad ku daawan doontaan waxa ugu dooron fadeexad culus oo ka muuqata guddiga farsamada ee doorashada galmudug iyo mid ka mid ah xubnihii guddiga oo ku dhawaaqay inuu iscasilay warbaahinta madaxa bannaan oo loo diiday inay ka qayb galaan fadhiyada golaha shacabka oo sabtida furmaya kacdoon beeleed ka dhan ah maamulka daniyo ka qarxay gobolka bari ciidamada Jubbaland oo adkeeyay amniga Kismaayo iyo goorta la caleemo saaray Axmed Madoobe oo soo shaac baxday madaxweynaha Puntland oo ku wajahan Kismaayo qarax bambaano ay dad ku dhinteen oo ka dhacay Muqdisho gudoomiyaha aqalka sare oo fariin u diray madaxda dawladda ciidamada Turkiga oo howlgalla ka bilaabay gudaha Syria iyo weerar dad lagu dilay oo Jarmalka ka dhacay xagaag haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhowaada daawadayaal قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز sida warar hoosoo soo baxay ay sheegayaan waxaa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya laga mamnuucay warbaahinta gaarka loo leeyahay ee tabin jirtay dhacdooyinka ka dhaca fadhiyada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulanka ugu soo horeeya oo la sheegay in golaha shacabku ay yeelan doonaan maalinta Sabtida ah isla maalintaas ayaa la sheegay in aysan tagin golaha shacabka warbaahinta madaxa bannaan maadaama xildhibaanadu loo weeciyay xarunta cusub ee laga dhisay Villa Hargeysa oo ah xarunta guddoonka iyo guddiyada maadaama xarunta golaha shacabka la dhisi doono fadhi walba oo ay yeeshaan golaha shacabka ayaa la tilmaamay hadal jeedinta qaar ee xildhibaanada iyo guddoonka loo soo diri doono warbaahinta kolka ay dhiibtaan emailada lagu soo diri lahaa mamnuucista warbaahinta ee fadhiyada golaha shacabka waxaa horey u diiday xildhibaanada lagu tilmaamay in ay mucaaradka ku yihiin dawladda kadib markii ay sheegeen inay arrintaasi tahay caburin ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo inaysan jirin oraahdooda meel ay u marsiiyaan shacabka Soomaaliyeed Villa Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay arrintan kaga kol leedahay muddada yar ee u dhiman ay ku xakameysay ceebaheeda laga dhex sheegayo fadhiyada xildhibaanada maadaama mucaarad xooggan ay leedahay iminka waxaa jira xildhibaano ka hor yimid sida la xaqiijiyay diidmada warbaahinta gaarka loo leeyahay ee fadhiyada golaha shacabka bacdama kulamada ugu horeeya ee Sabtida qabsoomaya ay xildhibaanada mucaaradka doonayaan inay mooshin ka dhan ah gudbiyaan wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar xildhibaanada ayaa wasiirka ku eedeeyay in uu ku xayiray xildhibaano badan garoonka Kismaayo waxaa maanta lagu wadaa in magaalo xeebeedka Kismaayo caasimadda ku meel gaarka ah ee Jubbaland uu gaaro mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Puntland wafdigan uu hogaaminayo Saciid Cabdullaahi Dani waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maamulkaas ahna senator ka tirsan aqalka sare Cabdiraxmaan Faroole wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulkaas iyo mas'uuliyiin kale wafuudan ayaa Kismaayo u tagaya ka qaybgalka caleemo saarka Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland doorashada uu ku soo baxay in dawladda ay ka soo horjeesatay xubnahan ayaa shalay la filayay inay gaaraan Kismaayo balse diyaaradii ka soo qaaday xubnahan Boosaaso ayaa hakad ku gashay garoonka Garoowe si xubno kale halka uga qaado intaa kadibna oo waqtiga cariiri ku noqday sababta keentay baaqashada safarka wafdigan ayaa lagu sheegay inay tahay safarkooda oo qaadanaya 3 saac ay ku soo aadayaan xilli habeen ah oo aanan shaqaynin garoonka Kismaayo sidaasna uu safarkoodii dib ugu dhacay markaan aan fiirino Kismaayo qabanqaabadii u dambeysay xafladda caleemo saarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa ka bilaabatay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland ciidanka Jubbaland ayaa si weyn u adkeeyay ammaanka magaalada Kismaayo waxaana xaafadaha kala duwan ee Kismaayo ka socda howlgal lagu xaqiijinayo ammaanka mas'uuliyiin ku sugan Kismaayo ayaa xaqiijiyay in caleemo saarka madaxweynaha Jubbaland Madoobe lagu wado inuu dhaco 11 bishan Oktoobar oo ku beegan Jimcaha soo socda waxaa lagu wadaa inay ka qayb galaan xafladda caleemo saarka siyaasiyiin xildhibaano ka tirsan labada gole iyo marti sharaf kale 23 bishii hore ayay baaqatay xafladda sabab la xiriira
dowladda federaalka Soomaaliya oo xayiraado ku soo rogtay diyaaradaha aadaya Kismaayo maadaama aysan la dhacsaneen doorashada uu ku soo baxay Kismaayo khilaaf badanna uu hareeyay. Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa wajahaya cadaadiskii ugu adkaa kaas oo uga imaanaya dhanka odayaasha dhaqanka iyo beelaha deegaanada gobolka Bari Puntland. Xogaan helnay ayaa sheegaysa in kulamaan loo kala kicin muddo toddobaad ah isla markaana ku soo dhamaaday natiijo la'aan ay ka dhaceen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland, waxaana kulamadaas qayb ka ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Saddex ka mid ah beelaha ugu awoodda badan gobolka Bari ayaa lagu wadaa inay dhawaan ku dhawaaqaan inay joojiyeen wada shaqayntii ay la lahaayeen xukuumadda Puntland isla markaana ay ku dhawaaqayaan shirweyne degdeg ah oo looga tashanaya ayaha gobolka Bari. Beelahan oo kala ah Cali Saleebaan, Cali Jibriil iyo beesha Didiishe oo ka cabanaya dhammaan ilihii dhaqaalaha gobolka Bari sida dekada, aylaboorka iyo maxjarka oo loo gacan geliyay dowladda Imaaraadka Carabta isla markaana shaqalaan xoog leh la soo daristay dhalinyaradii iyo qaybaha kale ee bulshada gobolka Bari. Siyaasiyiinta beelahan ayaa la kulmay golaha wasiirada iyo xildhibaanada ka soo jeeda gobolkaasi isla markaana ku jira maamulka Puntland, waxayna isku fahmi waayeen dhaqangelinta rabitaanka beelahan, waana sababta keentay inuu Deni u yimaado Boosaaso arrintaas iyadoo kulamadii madaxweyne Deni la qaatay ay ku soo dhamaadeen natiijo la'aan, waana sababta keentay qalqalka Puntland. Odayaasha iyo dadka dhaqanka ee gobolka Bari ayaa ka cabanaya in ilihii dhaqaalaha gobolka loo gacan geliyay ajaanib isla markaana shaqo joojin lagu sameeyay kumanaan dhalinyaro ah iyo odayaal ka shaqaysan jiray dekada, aylaboorka iyo maxjarka gobolka Bari gaar ahaan magaalada Boosaaso. Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax bambaano oo lagu weeraray ciidamo boolis ah oo ku sugnaa degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Qarax ayaa si gaar ah uga dhacay isgoyska Albaraka waxaana rag hubaysan ay ku tuureen ciidamo ku sugnaa isgoyskaasi bam gacmeed. Bamka ayaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Inta la og yahay waxaa qaraxa ku naf waayay hal qof oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo isla shacab ah oo ku sugnaa isgoyskaas. Wararka ka imaanaya Dhuusamareeb ayaa sheegayay in iscashishay Xaliime Cabdi Cali oo xubin ka ahayd guddigii farsamada maamul sameynta deegaanada Galmudug. Haweeneydan iscashishay ayaa ka mid ahayd haweenka kaliya ee ku jira guddigan, welina si dhab ah uma shaacin waxyaabaha keenay iscasilaadda gabadhan ka tirsaneed guddiga farsamada maamul dhisidda Galmudug. Fadeexad culus ayaa ku soo baxday guddiga farsamada doorashada Galmudug oo habeen ka hor magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda ahna kusimaha wasiirka. Inta badan xubnaha guddigan ka soo muuqday ayaa ka tirsan xubno aad ugu dhow dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana xusid mudan in qaar ka tirsan guddigaas ay ka mid yihiin shaqaalaha rayidka ee dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa guddiga ka soo muuqday qaar ka tirsan la taliyaal wasaaradeed oo daacad u ah dowladda Soomaaliya. Mid dad badan ka yaabisay ayaa ah in guddiga ay magacowday wasaaradda ay ku jiraan xubno ka tirsan kooxda ololaha u waday musharax Qoorqoor ee u raacay safarkii Dhuusamareeb. Ciidamada dalka Turkiga ayaa howlgal gaar ah ka bilaabay magaalooyin ku yaala waqooyiga waddanka Syria oo ay dhawaan baneeyeen ciidamada Mareykanka. Goobaha ciidamada Turkiga ka howlgaleen waxaa ku sugan koox maleeshiyaad ah oo Kurdiyiin ah, waxaana dowladda Turkigu sheegtay inay deegaanka ka sameynayso aag colaadda ka badqaba oo qaxootiga deegaan ahaan loo deji doono. Wararka ay warbaahinta qaar tabinaysa ayaa sheegaya in dagaal uu ka dhacay magaalooyin xuduudda u dhaxaysa Syria iyo Turkiga kadibna ay ciidamada Turkiga ay si toos ah xuduudda uga gudbeen. Ugu dambeyntii weerar dad lagu dilay ayaa Jarmalka ka dhacay. Inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii koox hubeysan ay weerar ku qaadeen goob ay dad badan ku sugnaayeen oo ku taala magaalada Hel la yiraahdo oo ku taala Jarmalka. Wararku waxay sheegayeen in hubeysnaa oo gudaha u galay maqaayadda kadibna uu ku toogtay rasaastii uu riday laba ruux. Kooxdii weerarka qaaday ayaa ka baxsatay inkastoo boolisku sheegay inay xireen qof la tuhunsan yahay. Booliska magaalada Hel ayaa dadka ugu baaqay inay guryahooda joogaan maadaama kooxdii weerarka geysatay weli la baadigoobayo. daawadayaal waa naga inta warkaad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelka Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.